Asalaamu calaykum asxaabta sharafta leh oo walaalkiin cabdirasaaq soo dhawaada. Waxaan u guda galaynaa qaybteena labaad ee sheekadii ku saabsaneyd gabadhii lagu xujeeyey in ay jaamacad dhammayso ee guurkeeda loo diiday, wiilkii ay rabtayna loo diiday, ee ay weydiisatay sheekha in uu la taliyo. Qaybteena labaad ayaan u guda galaynaa ee ku saabsan marka la talinta gabadha. Sheekhu waxa uu leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay in aad ila soo xiriirto oo talo i weydiiso. Xadiisku waxa uu inoo sheegay laba isjecel waxa ugu habboon in la isu guuriyo. Xadiiska Ibnu Maaja ayaa wariyey, Sheekh Albaanina wuu saxiix yeelay. Diintu waxay dhalinta ku dhiirrigelisay inay guursadaan markii ay awoodaan, ayna helaan qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa laga raali noqon karo. Gabadha reerkeeda waxaa la faray, hadduu u yimaado nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa lagu kalsoon yahay, inay u guuriyaan. Haddii aysan yeelin, waxaa dhalanaya fasahaad weyn. Waa sida xadiisku yahay. Waxaan ka xumahay reerkaagu in ay doorteen go'aan fasahaadi ka dhalan karto. Ilaahay kama dhige, iyaga oo laga yaabo in aanay ku baraarugsanayn wax bi'iyana islahayn ee wax hagaajiya isleh. Sabab lagu qanci karo ama guur munaasab ahi lagu baajin karo aan ka ahayn gabadhayadu jaamacad waa inay dhammaysaa. Waa yaab. Hadday maanta diidaan ninka diinta iyo akhlaaqda leh ee diintu fartay in ay u guuriyaan, damaanad ayay haystaan gabadhu in ay jaamacad dhammaynayso iyada oo bad qabta, ayagoo khilaafay amarkii Suubanaha calayhi salaatu wasalaam. Damaanad ayay hayaan gabar Yurub joogta oo dhalinyaro ah in aanay fitno iyo soo-baxasho la kulmin. Damaanad ayay hayaan wiilka iyo gabadha la isu diiday in aanay dhibaato kale ka dhici karin. Miyaanay Ilaahay ugu mahadin gabadha sidaa u edeb badan ee Yurub joogta iyo wiilka dhalinta yar ee wanaagsan ee labaduba sheekada dheer ee khatarta ah ee sannadaha socota nacay, guurka xalaasha ahna raba? Miyaanay mudnayn labadaas oo kale in la kala celin oo la isku guuriyo, oo shuruudo aan meesha oolin lagu xannibin, oo hawsha loo fududeeyo? Ma waxay rabaan sheeko sannado socota, kadibna dabka iyo baasiinku istaabtaan? Gabar ku leh waan rabaa guurka ee ha la oggolaado wiilka, maxaa rabitaankeeda loo caburinayaa? Ma iyadaa guursanaysa mise reerka ayaa guursanaya? Waa yaabe. Waalidiinta qaarkood waxaad mooddaa inaanay dhulka aynu ku noolnahay kula noolayn ee dayaxa ku nool yihiin. Iyaga oo isleh waxtara ilmihiina ayay dhuunta ku dhuftaan oo dhabarka jebiyaan. Goor aan la qoomamayna dhafoorada qabsadaan. Midda kale oo in lagu celceliyo u baahan waxaa weeye reerka Soomaaliyeed inay ogaadaan arrinka guurka. Gabadhu iyada ayaa go'aanka u dambaysa iska leh, iyada ayaana guursanaysa. Sharciga Islaamkuna arrintaa meel cad ayuu dhigay, oo aayado iyo axaadiisyo fara badan ayaa ku soo aroortay. Gabadhu in ay go'aanka guurkeeda leedahay, laakiin lala taliyo. Weliguna nikaaxa wuxuu ku diidi karaa marka ay jirto sabab ninka guurdoonka ahi lagu diidi karo oo gabadha aan u muuqan danteedana ahayn. Kolay reerkaagu wanaagga ayay rabaan, laakiin waddadii ayaa ka khaldantay. Hadday arkaan sida aad arrinta u doonaysana waa laga yaabaa in ay kugu waafaqaan guurka. Wax kale oo u muuqda oo aan adiga wax raba kuu muuqanna waa dhici karaan, oo duruufo kale
oo idinku xiran oo aanan ogeyn ayaa dhici kara. Hase yeeshee, la hadal oo isku day inaad qanciso, u caddayso inaad sugi karin sannadahaas badan. Marnaba adeer kugulama talinayo go'aan aan reerkaagu raalli ka ahayn in aad qaadato ama aad ku dhaqaaqdo. Laakiin isku day in aad qanciso ama cid qancisa oo culimada magaalada ka mid ah u geyso. Ilaahayna khayrka ha idin waafajiyo adiga iyo wiilka iyo reerkaba. Haddii calaf aad isku leedihiin waad kulmaysaan, iyada oo guurkiina loo wada damaashaadayo. Wabillaahi tawfiiq. Sheekha intaas ayuu gabadhii kula taliyey oo ku soo gabagabeeyey, taladaas ayuuna siiyey. Waxaan leeyahay oo aan ku dardaarmayaa gabadha waa in la fahmo. Waanayo kulan kale oo xiiso leh asxaabta. Fadlan ha ilaawin subscribe-ta, like-ta, muuqaalka fogee meel fog gaarsii. Wabillaahi tawfiiq.